waddanka Mareykanka ayaa ka qayb galay munaasabad lagu xusayay sanad guurada 18aad ee maalinta calanka oo ay sanad walba qabsadaan muwaadiniinta Itoobiyaanka ee ku dhaqan waddanka Mareykanka. Munaasabadan oo ay soo agaasimeen muslimiinta ku dhaqan waqooyiga gobolka Virginia ee cariga Mareykanka ayaa waxa si habsami leh uga soo qayb galay dhammaan muslimiinta Itoobiyaanka ee ku dhaqan waqooyiga gobolka Virginia. Waxaana mas'uuliyiintii kulankaasi soo agaasintay iyo ra'iisul wasaare Dr. Abiy Ahmed halkaasi ku dhaxmaray kulan wada tashiya oo ay kaga wada xaajoonayeen horumarka waqti xaadirka ka hana qaaday guud ahaan dalka Itoobiya iyo waliba isbeddelka siyaasadeed ee ka jira dalka Itoobiya. Arrintaasi waxay noqotay mid ay soo dhaweeyaan muslimiinta oo ra'iisul wasaaruhu kulanka la qaatay. Ra'iisul wasaaruhuna waxa uu ugu baaqay dhammaan muslimiinta ku dhaqan dalka Itoobiya inay meesha ka saaraan kala qaybsanaanta dhexdooda ka jirta oo ay midoobaan maadaama ay laga marmaan tahay inay muslimiintu isku duubnaadaan oo ay midoobaan. Ortodoks sitanakir, Muslim sitanakir, inay sitanakir marka ay dadka diinta ortodoksiga haysta adkaadaan ee ay muslimiintu midoobaan ee adkaadaan ee aniga la fahaantaydu adkaada isla markaana idinku intaad isku duubnaataan adkaataan waxa gacanteena soo galaya oo isku keen soo dhiibaya dunidan aynu ku noolahay oo dhan. Sanadihii aynu soo dhaafnay ee u dhaxeeyay 40 ilaa 50 sano ee aynu ka soo gudubnay dalkeena Itoobiya waxa ka jiray kala qaybsanaan dhanka diimaha ah, qoomiyadaha ah, derisnimada ah. Kala qaybsanaantaasina waxay keentay khasaaro weyn oo haba yaraatee wax faa'iido ah ma soo maxaa yeelay waddankeena Itoobiya dhexdiisa marka ciidda Arafa la xusayo ee meel cuntada lagu sameeyo saxniga ama shayga kale cuntada lagu rido lama qaado ee cuntada meel ayaa lagu wada ridaa si ay dadku u wadaagaan oo ay meel wax ugu wada cunaan. Markastana cuntada waa lagu duldaraa si uunan weelkaasi u faaruqin kadibna wada jir ayaynu u wadaagnaa. Marka aynu cuntada dhamaysanana si wada jir ayaynu u tukanaa. Arrintaasina waxay cadeynaysaa inuu jamacu wanaag leeyahay oo uu wato isdhageysi kala dambayn istixgelin isku dulqaad